kulanti wacan wanaagsan ku soo dhaw barnaamijka baraarug waxaan ahay Abshakuur Maxamed Xarbi maanta sidoo hore way ka duwan tahay waa reaction waxaan halkan aan ku wada daawan doonaa video run ahaantii aad iyo cajiib anigu markaan daawaday bal waan eegina videogaas markaan Ingiriis ku hadlay mar baan aniga isku dayaya intii aan ka fahmo inaan bal micno Soomaaliya saaro adiguna dareenkaaga bixi oo bal la soco videoga oo isku day inaad fahanto bal I hate Plan B. عيري ونعبها Plan B يعني قرش B يعني قرشياش سو A B C ما لها يعني ونعبها قرش لبعض يعني. And I tell you why. Because we have so many doubters. We have so many of those people that say no and you can't do it, that's impossible. But when you start doubting yourself, that's very dangerous. عيري waxaa jira waxyaabo badan oo ku shaki galiya waxyaabo badan oo markaa ku oran dad badan oo ku oran ma awoodid ma qaban kartid ma sameyn kartid laakiin wuxuu yiri maalintaad adigu iska shakido ayaa ah maalinka ugu khatarta badan tahay yani maalinka anigu iska shakiyo soo tolo ma qaban kartid ay barna dadkii waa kule ma qaban kartid laakiin markaa waxa macna ma leh laakiin markaan adigu iska shakido markaasi dangerous tahay khatar bay tahay markaas. Because now what you're basically saying is that if my plan doesn't work, I have a fallback plan, I have a plan B. And that means that you start thinking about plan B, and every thought that you put into plan B, you're taking away now that thought and that energy from plan A. And it's very important to understand that we function better if there is no safety net. Waxay waxaad oranaysaa haddii ay plan A ii shaqeyn weydo qorshe A haddii uu ii shaqeyn waayo qorshe B ayaan markaas aan ku badbaadayaa markaa shaki ayaa kugu yar abuurmay energy-ga aad markaa wada gelin lahayd A waxaad markaa ku wada tuuraysaa ama yani u kala qaybinaysaa A iyo B laakiin waxaad ogaataa inaad si wanaagsan u shaqeyn karto haddii aanad wax safety net lahayn inaga marka inaga ku dacaydeenna dadka sida wacan wax u bartaa waa gaajo ka carar hebel ma aragtay ha waa gaajo ka carar bay nahnaa gaajo ka carar ma aha micnaheedu yani waxa weeye in qofkaasi wuxuu yani safety net baan meel isku haleeyo oo yani uu dhaho haddii maanta waxba baran weyda ama shirkad hebela ama adeer ama igeenay yani wax noocaas oo kala marka waa inaad markaan waxba isku haleynaynin waxaad uga shaqo badan tahay markaad wax isku haleynayso marka waa inaad safety net aanad lahayn ayaa very important tabulay because plan B becomes a safety net. It says plan B marka waxaad u dhiganaysaa yani in safety net oo kale inaad marka haddii aad A ku shaqeyn weydo aad B ku badbaado marka taas waxay muujinaysaa in aziya wax yar that if I fail, then I fall and I get picked up and I have something else there that will protect me. And that's not good, because people perform better when there's no safety net. People perform better in sports and everything else if you don't have a plan B. si wacan ayaad u shaqeynaysaa markaanad lahayn plan B si ka wanaagsan marka yani aanad safety net lahayn markaanad wax isku haleynayso labaad aan jirin qaybta koowaad ayaad ku mitidaysaa yani si wanaagsan ayaad marka uga soo baxaysaa. Telling you, I've never ever had a plan B. I say I made a full commitment that I'm going to go and be a bodybuilding champion. I made a full commitment that I'm going to be in America. I made a full commitment that I'm going to get into show business and I'm going to be a leading man. No matter what it takes, I will do the work. wuxuu markaa ninkan leeyahay weligay plan B man yeelan waayo mar kasta waxaan naftayda commitment ku ah yani aan iga go'an inaan noqdo haddii aan doonayo hogaamiye haddaan doonayo inaan jaamacadda ugu sareeyo commitment ba way iga go'an tahay marka safety net ma lihi taasaa markaa keenaysa inaan ka go'anaanshiyahaas inaan energy badan geliyo. I would do the work over and over and over
until I get it. And the same was in politics and everything like that. So to me, it is very dangerous to have a plan B because you're cutting yourself off. ولا بلان بي هدي سميستو jiridda ayaad hoosta ka goynaysaa macnaheedu waxa weeyaan adiga ayaa hoos iska goynaya inaad gaadho oo guulaysato wuxuu leeyahay plan B adiga ay markaa hoos ku dhigaysaa oo naftaadii ay shaki ku abuuraysaa yani inaad gaadho qorshihii aad doonaysay. One of the main reasons why people want to have a plan B is because they are worried about failing. What is if I fail, then I don't have anything else? Well, let me tell you something. Don't be afraid of failing because there's nothing wrong with failing. You have to fail in order to climb that ladder. There's no one that doesn't fail. haka baqin guuldarada maxaynu ka baqanaa guuldarada guuldaradu wax macnaa ma laha si aynu u gaadhno meesha sare aan doonayno waa inaynu guuldareysano ma jiro qof aan guuldareysan maxaad uga baqaysaa guuldarada. What is now the case that when you fail you stay down. Whoever stays down is a loser. And winners who fail and get up, fail and get up, fail and get up. dadyowga guusha waaweyn gaara horta dadkoo dhan way guuldareystaan laakiin qaarna way joogsadaan oo sidaas ay ku joojiyaan oo stay down xagga hoose joogaan waana loser waa qof yani aan saas uu qofkaas ku tagay midna uu guuldareystaa laakiin uu kaca uu kufaa sida caruurta yar markay socodka baranayso haddaanay kufin oo inay kicin lagama yaabo inay socodka bartaan oo tala dhaho daaya socodku baranayay waa sidaas la mid ah noloshana laakiin haddii ilmaha yar iska fadhiista ka waran dee socod baran maayo. Always get up. That is a winner. That is a winner. taasaa la yidhaahdaa guulaysti. Okay to fail. Let's just go all out and give it everything that you got. That's what it is all about. So don't be afraid to fail. ha ka baqin inaad guuldareysato. run ahaantii fideogan waxaan filayaa in aad yani macno weyn kaaga baxay anagu barnaamijyo badan aan soo qaadano ama rag badan oo dhageysano kuwa dhaha plan A samayso B samayso C samayso laakiin ninkan uu jibiyay wuxuu yiri plan B samaysanin si aad mar walba noqoto qof gaajka carira oo ka go'an tahay inuu qabto qorshihiisa. barnaamijka baraarugintaas ayaan ku dhaafayaa intaan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.